waxaan rabaa halkan inaan ka salaamo marka hore waxaan rabaa inaan u mahadceliyo Allah subhanahu wa ta'ala oo inoo gartay ogolaanshihiisa iyo raaliyaashihiisa inaan isugu nimaadno maanta goobtan aan joogno mar labaadna waxaan u mahadcelinayaa dhammaan beelweynta Habar Yunis meel walba ay joogto oo aan leeyahay cuqaal madax iyo dhammaan dhalinyaro iyo haween waxaan ku salaamayaa magaca islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu inta ka bacdi maanta waxaynu isugu nimi halkan waxaan u maleynayaa aroos maaha xaflad maaha caleema saarna maaha oo xildhibaan iyo duubtoona ma caleema saarayno laakiin waxaynu isugu nimi inaynu muujino dareenkeena iyo waxa aynu tabayno ama waxa inaga maqan waxaan maanta aan leeyahay beesha Habar Yunis uma iman hotel saxafi inay iska fadhido ama ay ku sheekaysato waxay u timi inay u cadayso cid kasta oo ay qusayso waxa ka maqan iyo waxa ay diidan yihiin beesha Habar Yunis waxay diidaysaa boobka xarkaha goostay beesha Habar Yunis waxay diidaysaa ku tarifalida awoodda beesha Habar Yunis waxay diidaysaa in la isticmaalo magaceeda iyada oo la gashan yahay shaarar kale iyo dana kale oo cid kale leedahay beesha Habar Yunis waxay baaq dheer ku sheegaysaa oo u sheegaysaa dhammaan cid ay qusayso in aanay marna aqbali doonin inay mas'uuliyadda beesha Habar Yunis cid jeebka ku sidato oo lagu baabi'iyo waxaase wax la yaabo ah beesha Habar Yunis waxaan u maleynayaa waa beel balaaran wadankan xilal fara badan bay ka soo qabteen ra'iisul wasaare ku xigeen bay ka soo noqdeen Fawzi Yuusuf Xajaada wasiirka arrimaha dibadda ay noqotay laakiin intii ka dambeysay oo maxay haytay marka laga yimaado wasiir Ridwaan Habar Yunis waxa uu sugnaatay oo ay siyaasadda kala kulantay saaxadda siyaasadda dad aan u ahayn oo aan lahayn experience ama wax la yiraahdo tawfiiqdii Habar Yunis dadaan ku shaqeeyna u shaqeeya dana kale iyo dad kale waxa kamida wasiirka dastuurka ee imika hadda jooga oo dhammaan loo adeegsado waxyaabaha Habar Yunis lagu abayus gareeyo ama magaca Habar Yunis lagu baabiyo waxaan ognahay wasiirka dastuurka intuu joogay Habar Yunis waxay weyday xilal badan oo muhiim ah oo ay dawladda federaalka ku lahayd oo ay dhammaan ka xishoodeen madaxdii hore dalka inay ka qaado beesha Habar Yunis waxay weyday gudoomiyaha maxkamadda sare oo wasiirka dastuurka isagoo jooga qaybna ka ah in laga qaado beesha Habar Yunis oo dhammaan ay laga galbiyo xilkaas oo beesha Habar Yunis laga qaado waxay beesha Habar Yunis weyday oo ay ka baxay intii wasiirka dastuurka joogay gudoomiyihii bangiga oo aan iyana waxay u tahay toona wasiirku isgelin waxaanu leenahay wasiir Saalax wasiirka dastuurka ee u shaqeeya danaha kale iyo dadka kale beesha Habar Yunis ma metelo beesha Habar Yunis kuma hadli karo go'aankeeda Habar Yunis iyada tashata looma taliyo waliba waxa ayaan daraa Soomaalidu waxay tiraahdaa marka nin aan talin jirin taliyo nin aan tagi jirin baa taga aad waxaan uga xumahay xamar in badan baanu soo joognay in badan baanu anagu xogagaal ka ahay maanta aynu joogno oo wasiir Saalax golaha siyaasadda wasiirada inoogu jiro ama xukuumadda ku jiro waa maalintii Habar Yunis ugu ayaan daray oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu u keenay qof aan u ehelahayn waxay u tahay toona waxaan aad uga xumahay in beesha Habar Yunis ay u yeelato saami wasiir Saalax oo ah u Habar Yunis la dhaco waxaan ogahay Saalax inuu yahay qof aan u shaqeyn Habar Yunis laakiin u shaqeeyo cid kale waxaan baaq dheer ku sheegaynaa kuraasi saddexda kursi ee ay leedahay beesha Habar Yunis Saalax kama taliyo Habar Yunis iyo Saalaxna Habar Yunis baa miisaan culus waxaan aaminsanahay Saalax waa ninka ugu miisaanka fudud beesha Habar Yunis marka la isku daro ee macad dumarkeeda iyo caruurteeda oo lagu daro waxaan u sheegaynaa ra'iisul wasaaraha dalka ra'iisul wasaare inaan kan sheegtay sidii Fircoon Ilaahay Saalax wuxuu sheegtay sidii Fircoon buu Ilaahay sheegtay wuxuu wax walba ana leh Ilaahay baa subhanahu wa ta'ala kaliya ayaa oran kara aniga laakiin qof bin aadani ma oran karo wax kasto Habar Yunis lahayd Saalax wuxuu yiraahdaa ka taliya gabadh hadii la guursanayo Saalax wuxuu yiraahdaa aniga la sheego iyana hadii la shaqo galiyo Saalax wuxuu yiraahdaa aniga la sheego war Habar Yunis masiirkeedii maxaa wasiirka dastuurka shaqada uu hayo u fiirsada waa wasiirka dastuurka
maxaa ku soo celiyay reerkiisa iyo inuu arrimaha reerkiisa uu noqdo dhangad lala dhaco meeday shaqadii ummaddu ka sugaysay wuu lusgareeyay wuxuu u soo jeestay inuu beesha habar yoonis dhammaan bannaanka ka wada dhigo hal wixii ay ku lahayd dowladda federaalka laakiin waxaan leeyahay saalax waa la doonayaa la dacaroon habar yoonis way jirtay wayna jiri doontaa wayna joogi doontaa xamarna habar yoonis oo joogto maskabiyo ku haysata baad adigu 2016 tibi adigoo kursi doonaya habar yoonis way ku sharaftay way ku maamustay waxbay ka dhigtay laakiin aad baan uga xumahay ma helin abaalkii habar yoonis kugu lahayd oo adila wasiir ku noqotay waxa ka sii ayaan daran habar yoonis markii ay xildhibaan ka dhigtay ee dawladda federaalka la dooranayay ee wasiirada iyo ra'iisul wasaaraha maxay heetay la sameynayay anu waxaan kamid ahaa xildhibaanadii saxiixa habar yoonis u saxiixayay cidii la maxay heetay han wasiirnimo runtii waxaan aad uga naxnay anagoo doonayna wasiirada eeda oo aan u saxiixnay ilaahay janiyo raxmaha siiye wasiir nuur faarax oo leeyahay ilaahu subxaanahu wa ta'ala godka ha wasiiciyo iyo rag badan oo kale oo hal lahaa oo aanu doonayna inay qabsadaan wasiirada ugu sareeya ama wasiir grade kala yiraahdo waxa ayaan daraa inuu saalax noo soo qaaday wasiirka shaqada iyo shaqada oo ay qaataan beelaha Bounty 5 waxaan leeyahay wax taas waxay noqotay habar yoonis ilay noqotay madfac ku dhaca in la soo qaado wasiirka shaqada iyo shaqaalaha halkii aanu qaadan jirnay wasiirka arrimaha dibadda wasiirka maxay haytay ra'iisul wasaare ku xigeen inuu saalax noo soo qaaday wasiirkii shaqada iyo shaqada aad baan uga tacsiideynaya habar yoonis ma geydo waan leeyahay habar yoonis wasiirka shaqada iyo shaqada dalkan Bounty 5 ayaa iskale wasaaradaha ay leeyihiin ee aan loogu tagin laakiin waxa soo qaaday oo Bounty 5 naga dhigay wasiir saalax laakiin saalax waxaan leeyahay saalaxow habar yoonis afkaaga iyo hankaaga yar ee adiga Bounty 5 ka dhigay ku noqon mayso maxay heetay saad moodayso waxaan rabaa inaan halkaan mar labaad iyo mar saddexaad baaq uga dhigo ra'iisul wasaaraha dalka ra'iisul wasaare anigu oran maayo mahdi guulad mahdiyow iyo ra'iisul wasaare ku xigeeno waayo Soomaalidu waxay oran jirtay berigii sonkorta la waayi jiray kayida la gali jiray islaamihii reer burca waxay ku heesi jireen qolo reer burca waa qolo aadab Soomaaliga u taqaanee eelka kii dhigay ergootoy khabar waa ninka waxan oo dhan dhigay ninkii waxan ka dambeeyay ee waxan oo dhan sahlay uma rabno inaanu dacwoono waxaan u dacwoonaynaa ra'iisul wasaaraha ummadda iyo beesha caalamku oo ka ogtahay doorashadan inuu isagu mas'uul ka yahay ra'iisul wasaare waxaanu ilaahay hortiisa kugu leenahay baabka iyo musuqmaasuqa ay wadaan wasiiradaadu haddii aad raali ku tahayna Allah subhanahu wa ta'ala ayaa kaala xisaabtami doona amaanadaad qaaday ee ummadda Soomaaliyeed waliba in badan ku celcelisay waxaana saameyn doona cadaalad waxaan ummadda Soomaaliyeed tusi doona wax ay ku farxaan waxaan leeyahay ra'iisul wasaare Allah subhanahu wa ta'ala kaala xisaabtami doona ballamaha aad qaaday ee aad kaga baxday ilaahayna waa kii uu lahaa rasuulkuna xadiis saxiixa لا يكذب حاران ولو كان لعبينته وحاران حتى هذه بين عيارتي رئيس وزراء هدي أي بين كهيدنا الله كعفيو إلهي بك حساب دونه هدي أي روم كهين رئيس وزراء وحنا كلنا أي دبت هاي وسيرة هذا شعر كاجا قشن كراسي الريرة بوباي إرجال كقرن أيام مقالة دحديدة وحنا وقنا باشي هبريونس واتن كرسي كمان تانو كراسي دي هبريونس waxa lagu qorayaa Villa Rose waxa qoraya khadar xariir oo ah inaan u keensaday in adeerkii khadar guuleed khadar xariir iyo khadar guuleed kuraasida habar yoonis kama taliyaan habar yoonisna looma taliyay talisa ra'iisul wasaare waxaanu ku leenahay dadka waadan kala aqoon malaay beeshaad ka soo jeediyo beeshana wax badan bay xiriir lahaayeen oo waliba arrimo badan baa iska quseeyay ra'iisul wasaare hoos u eeg oo dadka qabaylada Soomaaliyeed dadka weydii habar yoonis waxeeda lama dhaco haddii la dhacana waxba ka dhaca waa lagu gubtaa xaaf baa wuxuu yiri qiyaama dhacaya haddii kursiga la iga qaado waxaan leenahay kuraasida habar yoonis haddii sida loogu sii wado tamala xamar baba qiyaama ka dhici doona waxaan rabaa inaan hadalkayga ku soo gunaanado oo aan maxay heetayaan mar labaad baaqu diro gudida khilaafaadka shalay waxay soo galiyeen xalay maqribkii warqad ay ku joojinayaan kuraasidaas
oo totally xaqiiqada ka fog ama beesha habar yoonis baanay shaqo ku lahayn oo dad kale oo aanan garanayn ay ku qoran yihiin odayaashooda iyo civil society-goodaba isla daqiiqada gudahood ayaa laga saaray warqadii page-ka gudida waxaan leenahay gudida warkii aad soo saarteen ummadda horta wuu wada gaadhay annaguna waanu haynaa cid walibana waa haysaa warqadaa ku beeniseen oo tidhaahdeen warqadaasi feeg bay ahaydna maydaan soo saarin kuraasidiina maydaan fasixin haddana waxaa socotaa ergo ka socota Villaros oo Khadar Xariir uu diiwaan gelinayo oo la rabo berrito bishu tahay 17 oo maalin khamiis ah in lagu boobo kuraasidii habar yoonis lagu xalaashado ra'iisul wasaare kuraasida habar yoonis ee aad tiri waan xayiray ee gudida khilaafaadkuna ogtay ummadda Soomaaliyeed ogtahay ka dhabay baan ku leenahay wixii horena Allah subhanahu wa ta'ala waa raxmaano dunuubaha wuu cafiyaa laakiin haddii ay ku sii socoto boobka waxaanu kula sugi doonaa oo aanu Allah hortii ku sheegaynaa inaad ilaahay kala xisaabtamo aakhira ya duuntoona ummadda Soomaaliyeed kuma cafiyayso annaguna gaar ahaan kuma cafiyayso beel Soomaaliyeed ba ooyaysa hooyo Soomaaliyeed ba ooyaysa waa doorashadii ugu corruption ka badnayd waa doorashadii aan arkay anigu beelashii jirayd qabanaya doorashadan ka hor maan arag doorashooyinkuna waddanka way ka dhici jireen waa doorashadii aan arkay beelle waa lay boobay oo ra'iisul wasaaruhu dhagaha aan maxay hatay ka fariistay oo gudidii doorashada ee maxay hatay fiid aan hadlaynin waa waxyaabaha la yaabo waxa keenay inamada yar yar ee la yiri xildhibaan hebel oo adigu inaan keenso wasiir hebel oo wadna inaan keenso ra'iisul wasaare ku xigeenada qaar keenso ee dhamaantood noqday jeebka wax ku jira iyo dhamaan xigtadii iyo cayiladii reerkaas waxaan leeyahay annagu gudida la samaystay siyaasaddaanu ku jirno xildhibaan baanu ahayn ilaahay baa sidaa nagu ogaa ma aanan rabin xubinaanu ku boobno habar yoonis ama xubinaan ku boobno reerkayaga inaanu geysano run hadii laga hadlaayo waanu ka agajiiday maan dooran maan oran xubin siiya laakiin waxaan ogaa rag oomano raadinaya kuwiiba horeeyo 3 jeer baa la bedelay ayaan darada ku dhacday waxaan leeyahay markaas ra'iisul wasaare beesha habar yoonis cabashadeedu maalin walba waxay ka hadashaa saxaafadda maalin walba way hadashaa laakiin ma dhageysatide ilaahay dhaga ha ku yeelo aad ku maqasho assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh